أحبك بحجم السماء أحبك جدا بلا انتهاء فلست كطير من درب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المتقين، وبعد. داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كان عش عاشقة هي مركلته أن السجون المشاشدة تلفزيون عالمي عاوى برنامج كان وحى إنه مرتي ضيف قالية مرتي صحوة الإسلام كيوتو الصوماليات بأد لو قدريه، وهو فضيلة الشيخ سعيد الراقي حفظه الله. شيخ سعيد لو حكم دي علماء الدين كدقن ودن كندا سير مقالة تورونتو. شيخ سعيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا سودوا برنامج إيش عاشقة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مختصر وراء هريرة والله سبحانه وتعالى كعبة المية. كلنا على ثغرة نوضا من دينك حيا ودينك ما شاء الله تبارك الله وقرقارا زينا سبحانه وتعالى حين قدم قوة دينك وستاقي وقرقارا. جزاك الله خير جزاء شيخنا الفاضل على سبحانه وتعالى حكم بركيه. شيخ سعيد waxaa jirta maadaama ay dhallinyaradeenii halka qurbaha jooga ragga door baa doonaya inay guursadaan, gabdho iyo ragba waxaa lagu dhibaateeyaa in haddii lasoo doono gabadhii ama wiilku gabar la yimaado la leeyahay gabadhan ama wiilkani isku qabiil ma tihiin, isma geydaan, kafkaaga ma aha, waa nasabo dhimad, waxyaalo noocaasa. gabar walaalaha ka mid a oo email noo soo dirtay iyadoo la hadlaysa bahda Ish Caashiq waxay tiri culimada u gudbiya waxay ta 7 ragga ayaa qaarna isoo dooneen, qaarna aan guriga aan keenay anigu aan la yimid. gebi ahaantoodba waxaa loogu diiday inay ama qabiilkoodu yahay qabiilkaayaga nus naga dhiman oo aan mataqaan la isguursan karin, qaarna ay yihiin nasab dhimad nacam waxyaalo noocaas oo kaleeto qabiilka la xiriira. marka sheekh saciid raaga maadaama dhallinyaradii halka ay joogaan waxay la imanayaan ajnabigiina berita soomaalidii waxay gabadhu sida ay tiri dhibaatay ugu noqoto inaan mujtamaci ku dhexnaado waxa leeyahay ajnabi baa ku qaba, inkastuu qofkii muslim yahay. anigu badan baa ku jirta. sheekh saciid raage arrintaas maxaa oda waalidiinta la hadlaya aad ku oran lahayd, maxaana dhallinyarada ku oran lahayd? aad baa u mahadsan sheekhan alfaadil, baaraka allahu fiik. hortana waxaan ka oran lahaa waalidka inay ilaahay ka cabsado, ittaqu llaha fi awlaadikum, waayo carruurtani waa mas-uuliyad. inantana hadday waalidkii ay sharaftay ay tiri qof baan ku keenaya waxaan wa'tul biyuuta min abwaabiha, inankii waxaan ku wada warintaad meelaha aan isku qarsan lahayn in albaabka guriga albaabkiisa ka soo galo orada waalidkiisa weydiiso. waalidkiina markaa uu inantii macruufka ay samaysay ugu jawaabayna inay ku yidhahdaan qofkan isma geyno ama qofkan isku qolama yihiin, waalidku aad buu qaldan yahay. inay ilaahay ka cabsadaan wey. ina akramakum cinda allahi atqaakum ayuu ilaahay subxaana watacaala qur-aan ku yidhi. nabiguna xuri sala allahu alayhi wasalam kama fi sunan tirmidi idaa ataakum man tardawna diina wa khuluqa فزوجوا وردوا إليه ما تقف دينتي سيئة أخلاق بسرالي أكتنين وقولية قف قوة مسلم هكا إنس كاتاقنا دوي حدو مركا أي نقطة إنتي إنا قورسي إن أدوكرا دورتي قف مثلا أجنبية يقف صوماليا أو أي أسي منتح أي حيثان تقول للدون يو إن كرم إن حين تكريمك إلهي سبحانه وتعالى تشرفك أسي ay labadii inanba ay ka xambaarsan yihiin. waxaan leenahay waxaad dooran kartaa inanka Soomaali xaq baad u leedahay. markaa kaasa kulo laga yaaba inaad afgarataan, laga yaaba inaad dhaqan garataan, laga yaaba islaanta iyo odayga inay af Ingiriis ku hadlaan yara adag tahay. taa waa dawaan iyo ogolahay, laakiin inantii ku celisaan inan ay keensatay oo ilaahay ka cabsanayo oo wadaada lagu celiyo because of qabiil oo waa reer hebel iyo reer hebel waa qadankii. فكان jirta waxa weeye in laga yaabo waalid fara badan inanta qora maahe waalid fara badan inay in abdoodu u guuriyaan inamo soo muslimay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintan asaga wata
عدة دورنا وسوق قرينية وأنا ويريا لكن غير إنما ذا صوم مسلمين إنني أبهود يهودنا نسقبين ده وحرام كل شيء مهني مع ذلك كاوين أقول هاي وينسود ويننا أما نقدنين أما نقدنين جماعة لكن إن كيس الصومالي كل شيء وطن كي حلال كل شيء أبيه هاي نقرني وحنقول ديني وغير هبل تاسورتنا وحركة إجحاف يوم أضوء أقبال وقتها وحليها ماركة وحنا جوبنا وقت إنك علي بن أبي طالب وحورنتري رضي الله عنه سيدي ليدن كسو كوري كل ذلك عرفتنا كوريسان وهي عيبنا وقت بيليهن إذا وقت بالليل وحليها والدك ماركة عديد قربة جوغا وأم إنتاس أو دنيا أو دبت تاجن أو إذا تاجن إن هذيك أيكون كنتو إن الصوماليين أو دين كيس عرالي كتاي على خلاف عرالي كتاي أو مسلمة إن قبيل ويديسي أتكسر نقطة وحياة رب العالمين قبيل يعيكا وأنا جفي عين هل جونا نعرمها عرمنا نعرفنا نجونا دو وأي إلى هذا الرقم إن أكرمكم عند الله أتقاكم فكان والد كوران لها إذا يوقفوه وجوجي بلون يوم القيامة وايو وسؤالان الدينية نجم نوحي في صحيح البخاري يقصد حتى أبي هريرة كلكم راع وكلكم مسؤول قفوا وحبا الله دري وحي الله درنا ولا جور سمية والده وحاله ودري عرورتا إلى التربية دود يدين دود هي مستقبل كودا هتكشف تيسي مستقبل كودا تربية دود حوينا نيل هكذا كأوجات كأوجات سنة وحال دوني قفوا سنة الدين إلى الرأي صوت والدك ويجي جمايكا أما ويجي يقف على صوم مسلمين وأنا وأفتري كريم وحنا أورنا وغيره بلا وغير كاتب وحيك مركا أي والد كان كله وحي أي قدوني ما هي واحد كيف قدام أي رنتي أي كده ذا إني قدامي جارا مركا إني كان جمايكا كمركا إنتي اللي ويجي ولا رضيه بوسني والله إني صوم مسلمين شيء كذا كبحثا لكن هذا إني الصوماليات بقورسلي وحنا أورنا هو أيوه وغير هبل ما غير هبل بقينا تيسي ومشوا marka islaamta iyo oday waxay ka doodayeen ka cararayaan dadka malaamata naas dadka hadalkooda iyo in ambares la ambaareeyo iyo intaasay ka cararayaan taasina waa qalad mustaqbalka inanta iyo inan kama laga fakiro xagga diinta weeye wallahu a'lam wa a'lam جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا الفاضل شيخ سعيد ما دامت كميت هاي علماء واوين الصوماليات ee qayb gala konferensyada aadka u balaaran oo kamid yahay kan uu qabto walaalkeen sheekh doctor نايك oo loo qabto ama Dubai ama Hindiya loo qabto waxa jirta su'aal social media aad la isla dhexmarayo oo ah in ragga Soomaaliyeed ay yihiin kuwa aan jacayl waxba ka aqoon aan romantic aan ahayn aan furfurnayn wadamo badanna ay arintaasi naga fiican yihiin maadaama dhalinyaro badan aad aragtay qurbaad muddo badan aad joogtay dhalinyarana aad inta ku dhex jirtid arintaas maxay dhalinyaradu aad mataqaana uga jawaabto kale waa dhacdi karta inay ku soo martay maxaase kaga jawaabay sheekhana faadil adigoo mahadsan barakallahu fiik horta waxa xaqiiqa in ragay dumar kala duwan yihiin in طبيعة المرأة marka la eego gabadhu markii uu isbedesho oo kullu meesha ay joogto ayay qaadataa in dabeecadeeda iyo dhaqankeeda marka kullu meesha lagu tiriyo ayay isku tirisaa waxa inoo daliil xadiis sahih al-Bukhari Umar bin Khattab markuu waramayo wuxuu yiri markaan khayr ma ka ahayn dumarkayga annaka ka adkay in markii aan Madiina u soo guuray buu yiri waxaan u nimi rag dumarkoodii ka adag yihiin oo yara jiljilaysan oo dumarka u jiljilaysan kadib waxa dhacday buu markaa Umar bin Khattab in dumarkayagi dariiqii dumarkii ansaarta iyo caadadii dumarkii ansaarta ay qaateen waxaan garanayaa in markay sheekada dumarka iyo caanka isu bedelaan markiiba iyagu ay ku jiljilaysan yihiin masalada waxaan garanayaa anagoo Sacuudiga joognaa markaan dadkii aan Sacuudiga la joognay dumarkii Sacuudiga joogay niqaabka iyo cabaayad xiran jiray albaabkooda aan soo agmari jirin oo markay guri ka baxayaan min madaxa ilaa iyo ciribta qari jirtay maanta markay Canada tini liivas iyo wax xirantay jeans bay xirantay waayo waxa kana cabaayad baa la xidhnaa shacabkii baa cabaayad xidhnaa wala xirantay halkana jeans baa la xidhay way xirantay iyadoo raggu laakiin way ka adag waqti Umar bin Khattab isbedeli waayay sidoo isu bedeli waayay waxa dhacday markaynu qurbahan nimi
laba arrimood baynu la kulanay ilmihii yaraa waddanka kore wuxuu la kulmay aabihii iyo hooyadii oo aan tusaynin wax affectiona ama jiljileeca ama raxmad ka dhaxaysa ama iyo kuman arag iyo maanta iyo ubaxyada la isu keenaya iyo waxaa gurigooda kumay arag intooda badan telefishonkina waxay ka daawanayaan in dad bay xitaa xuduudkii dhaafiye sheekada oo xaq iyo baadil baa ka tallaabsaday oo xalaal iyo xaaraan baa xadkoodii ka gudbay marka asagoo tiina shariicadana iyadoo laga yaabo inuu keera akhristay ama ilaa keera akhrisatay waxaad adi markaa ilmihii saddex arrimood baa meeshii soo hortaagoo dee soo food saaray kow gurigii dhaqankiisii laba societyga iyo telefishinka iyo dhaqankoodii saddex kii islaamka iyo de wuxuu asagoo yaro barbartay oo dhaqan gooni ah marka saddexdaa inuu mid walba xaqeeda uu siiyo ayuu dee ku dadaalaya waxay imanaysa marka waalidkii dabadda joogana waadmeed xishoonayn dee haddaa gacmaha isqabqabsanaysan gudihiina isla taga iyo halkan laba afka iskula jiro oo gaala ah iyo nebigiiyo haddana le in rusubto bixubbiha marka laga yaabo dhalinyaro fara badan inuu qulooda confusion ay ku dhacdo marka waxaan kula tagnaa dhalinyarada caynkaasa saddexdaa dee waxaa ugu fadli badankii nebiga sala allahu calayhi wasalam horta idoo la ixtiraamayo mujtamacaad ka soo jeedid iyo dhaqanka aad ka dhalatay haddana tii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa intaba ka fadli badan marka waxaan tafriid ku jirin ifraadna aanu ku jirin lagana badbadin ijxaafna aan lagu samaynin oo raxmada inaan la istuso marka dabadda la joogo waa la ogoli oo hadal macaan iyo hadal qabow caynka laakiin inaan sida gaalada dhexda la isqabqabsado oo garbaha la isqabqabsado oo kalba lasoo yaro jiiro oo inanta laskaga yaro dhirbaaxo oo waxyaabahaas waxa laga yaabaa waxyaabo dhaqankeena aanaynu u baranin lagana wanaagsan inuu ku dhaqo dhalinyarada marka waxaan odhan lahaa inuu gacanta uu qabsado horta sharciyan inantu qabo inuu inanta uu qabo uu gacanta qabsado wax sharciyan xaaraantimeynaya ma jirto inuu ku dhahdo heblaayo hadal wanaagsan ku idhaahdana iyadoo meel la joogo publica taa wax xaaraantimeynayana ma jirto laakiin اعتدال بأبا أي المشهد بأهل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لله سبحانه وتعالى والله أعلم. بلوغ إسلامك سيدي أيو النبي عليه الصلاة والسلام السجع عليه سيي ومعان سوق حباري قبيلدي كلا دوانة عربية ماشي تسوي كوي لدى جنابه سيدي بو أها حالك استعيلك مسلمين تي هوري